السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوده مركله كسو دhowow qayb kale iyo cashar kale oo cusub oo kamid ah casharadii aad kala socon jirtay Koronto Trainings. haddii aad maanta ku cusub tahay daawashada casharadan fadlan subscribe deh page-kan si aad markasta cashar u heshid, comment haddii aad fikrad haysad ka bixi, haddii aad ka heshidna like saar, sidoo kalena waxaad share gareyn kartaa si aad ula wadaagto saaxiibada. casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay oo aanu ka hadli doonaa haddii alla yiraahdo dooda yani sida loo qabto iyo waxa ay tahay. marka horta dood laga hadlayo kelmadda dood af Soomaali ahaan horta English ahaan waa debate weeyaan, laakiin af Soomaali ahaan dood marka la yiraahdo waxa halka ka soo baxaysa qodob muhiim ah oo ah kala aragti duwanaan. waa laba dhinac ama in ka badan oo kala fikrad duwan. haddii dadka loo qabanayo kulanka ee la wada hadalsiinayo ay isku fikrad yihiin, dood maaha ee wuxuu noqdaa discussion kaasoo ah falanqayn. waxa la falanqaynaya waxa la isku raacsan yahay sidii loo horumarin lahaa. tusaale ahaan haddii la yiraahdo dumarku xaq ma u leeyihiin inay ka qayb galaan siyaasadda oo laba dhinac la isku keeno oo arintaas laga hadlayo, waa dood lagu kala aragti duwan yahay. laakiin haddii la yiraahdo sidee lagu horumarin karaa waxbarashada dalka ama see lagu horumarin karaa, qof waliba wuxuu ogol yahay sidii lagu horumarin karo, laakiin waxa laga wada hadlayaa waxa la keenayaa qorshayaal kana aragti u tahay laakiin aakhirka isku meel ah oo wax la isku diidan yahay oo badan ma jiraan. waxba la falanqaynaya sidii arinta wax looga qaban lahaa la falanqaynaya. marka saas u kala duwan yihiin. marka dood marka hadaad maqashid waxa weeyaan arin adag oo laba dhinac laga kala taagan yahay ama saddex dhinac laga kala taagan yahay. haddaba marka dooda la qabanayo, doodu shuruuday leedahay, waxyaabay u baahan tahay muhiim ah. waxa kow ka ah qofka dooda qabanaya waa inuu hayo mowduuc, waa inuu jiro mowduuc laga doodayo arin taagan. mowduucana waxa lagu xushaa wax bulshada saameyn ku leh, wax dadka saameynaya oo arin nolosha dadka daawanaya saameyn ku leh oo aan iska ahayn wax iska balaabala ah. qodobka labaadna waxa weeye midaan waliba mowduuca waxa ku sii xiga waa inuu jiro sabab kugu kaliftay mowduucan. waay mowduucan hadda laga hadlo maxaa keenay? haddii hore looga hadlay waxba ha ka hadlin, haddii sidoo kale aadan xal kale soo saari karin ha ka hadlin. sidoo kale waa inay jirto su'aal muhiim ah oo ay tahay in laga helo jawaabteeda dooda dhexdeeda. tusaale ahaan oo kale waxaa tiri doodba waxaan ka qabanayaa maxaa hortaagan in Amazon ay ka baxdo Soomaaliya. waa in dooda su'aashaas ay asal u noqotaa doodaada oo iyada laga hadlaa. sidoo kalena waa in la helaa ka qaybgalayaal ehel u ah dooda oo waxaan mowduucan dhinacyadiisa kala duwan dad xiriir la leh oo garanaya waxaan waa inuu jiro, oo hebel iyo hebel oo isku fikrada aysan noqon laakiin kala fikrada. sidoo kalena aad muhiimadda saartid kala aragti duwanaanta iyo kala duwanaanta jinsiga laftigiisa, yani lab dadig, yani rag dumar isku dar, dhalinyaro, dad waaweyn, culimo, caamo, isku dhex dardar dad kala duwan oo kala fikir kala aragti wax duwan waa inay noqdaan ka qaybgalayaashu. haddii laakiin isku fikir noqdaan dadkii wax fiican ma soo saarayaan, dood fiican ma imaanayso. sidoo kalena doodu waa inay keentaa xal, oo haddii mowduucii laga wada hadlayay uusan xal keenin, waxa meesha aad dadka u baahaysa wuxuu noqonayaa muran. dad baa murmay dabeedna waa iska dhamaatay. si aysan doodaadii marka barnaamijkaaga si uusan muran u noqon waa inay xal soo saartaa, waa in labada dhinacba ay meel isugu raacaan. tusaale ahaan haddii A iyo B ay doodayeen oo labada fikir ay halkaa iyo halkaa kala taagnaayeen, aakhirka waa inay isku soo biyo shubtaan oo ay meel dhexe isugu yimaadaan oo doodaadii ay soo saarto meel lagu heshiis yahay, wax heshiis lagu yahay. saas weeyaan doodaha wanaagsan. xasuusnow sidoo kale doodu macnaheeda maaha dad isku dirid maaha, inay dadku isku qayliyaan maaha. waa in si edaba loo wada hadlo, cilmina lagu wada hadlo. laakiin in la isku qayliyo la isku buuqo dood maaha. dadka ku daawanayana waxaad u gudbinaysaa muran laba qof dhex maraya ama ka badan. qodobka ugu muhiimsan ee aan ku gabagabeynaya waxa weeyaan casharkeena maanta doorka qofka daadihiyaha uu leeyahay. qofka daadihinaya dooda waa inuu hayo horta xog mowduuca ku saabsan oo wax badan ka garanaya mowduuca. xogtan waa inaad haysid A iyo B iyo C haddii ka qayb galayaan dooda. qofka fikradda A aaminsan waxa uu fikradan u aaminsan yahay oo dhan waa inaad ogtahay.
sidoo kale kan ka soo horjeeda waxa uu aragtidan uga soo horjeedo dhan waa inaad hayso xogteeda kan kale dhexdhexaadka waxa uu dhexdhexaad ku yahay oo ku taageerayo dhan waa inaad hayso xogtiisa waa inaad xog badan haysid oo dhinacyo kala duwan ah sidoo kalena waa inaad la timaadid door hogaamineed oo aad hogaamisid oo aad hagtid doodii oo adigu aad noqotid qofka majaraha u haya halka doodu ku socoto iyo sida loo wada hadlayo iyo waxa lagu jawaabayo qodobka kale ugu muhiimsan waxa weeyaan waa inaad dhexdhexaad noqotid oo aadan adiga aan lagu arag inaad qolo la safan tahay aan lagu arag waa run su'aal baad doonaysaa jawaabteeda qof kasta haddii jawaabta uu bixinayo aysan noqon jawaab ku qancisa waxbaad ka weydiinaysaa oo su'aal waad ka sii weydiin laakiin haddana waa in aan lagu arag inaad adigu labada dhinac ee doodaya aad dhinac la jirtid waa in lagu arag aad iyo aad baad u mahadsantihiin casharkeeni maanta halkaas ayuu nooga egyahay haddii aad wax fikrad ah ama tala aad haysid noogu reeb commentiga ama emailka aan xagga dambe ku sheegi doono ayaad inoogu la wadaagi kartaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin